السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنرال كمركز السود وده آدي هذا ومهتسنتين ما أنت وأربعة سديد بشي كوباد جانوري سنة كلابدا كون يشان يلا باتنك وقال كانوا حربا إن ندكول وذاقو فيسبوك أو إسبدل كل واقعين كمدحدا كاهي ماك زوكربيرج ayaa shalay isbedelo Facebook ay ku sameynayaan dhammaanba siyaasadooda iyo qaabka wax loo soo geliyo ayaan rabaa inaan idin la wadaago. Trump ayay noqonaysaa. Ninkan markii uu Trump la kulmay bishii la soo dhaafay ayaa arrintan kadib ay dhalatay. Sidee arrintan ku timid? Maxay yihiin isbedelada ay sameynayaan? Trump muxuu hadda ay u muuqataaba inuu Facebook isagu yeeshay? waxyaabahaasi ayaan rabaa inaan idinkula socodsiiyo. Sidoo kale muuqaalka ninka madaxda iskale ama Facebook asaasayaasha ka mid ah Mark Zuckerberg oo arrimahaasi shalay markii uu ku dhawaaqay isbedeladan ay sameynayaan ilaa iyo 6 qodob ayuu ku dhawaaqay. arrimahaasi ayaan rabaa inaan idinla socodsiiyo. Facebook waxay ku dhawaaqaysaa isbedelo cusub. ninka madaxda ka ah Facebook oo hadda shirkadda Meta la isku yiraahdo Meta ay la baxeen adiga 2 sano ka hor waxa ku midaysan Facebook, Instagram, Threads abka la yiraahdo iyo waliba WhatsApp waa Meta ayaa la isku yiraahdaa dhammaanba shirkadaasi waxa iska leh Facebook ayay hoos tagaan. Marka ninkan madaxda ka ah Mark Zuckerberg iyo Trump way isku dhacsanaayeen sanadkii 2021 markii Trump doorashadii looga guuleystay waa kii barihiisa bulshada inta badan laga xiray sida Twitter oo hadda X loo yaqaan iyo Facebook markii warar badan oo been abuur ah uu ku faafiyay. marka Trump arrintaasi waa kii inta aad uga carooday samaystay bar u gaar ah oo Truth Social yiraahdo oo hadda uu isticmaalaba wuxuu rabo uu soo geliyo ilaan asaga ayaa iska leh wax dhahayo male waxaan ka bixiyo waxaan ka saar waxaan qalad wax dhahayo male wuxuu rabo ayuu ku soo qoraa. markii dambe waa tii guddi intay u fariisteen Facebook Trump dib loogu soo celiyay Twitter sidoo kale waa lagu soo celiyay hadda marka labadooda maba isticmaalaba Twitter oo hadda X loo yaqaan iyo Facebook labadaba Trump isticmaalo. marka Trump waxyaabaha marka uu labadan uga baxay waxay ahayd faafreeb in macnaha wixii qalada uu sheego la leeyahay waxaan waa qalad oo meeshii laga tirayo Facebook ama Twitter hadda X loo yaqaan. sidaa darteed marka Trump wuxuu yiri maxaaba kugu wata meelahan waxaad soo gelisay lagu daba joogo ma mid gaar ah samaysatay sidaas ayuu Truth Social ku samaystay. marka Mark Zuckerberg waa kii u hanjabay Trump uu yiri haddaan xilka ku soo laabto xabsi ayaan ku dhigayaa. ninkii Mark Zuckerberg marka Trump November markii la doortay December ba intuu cararo Mar-a-Lago ugu tagay qasrigiisa Florida. marka nin aad dagaashantiin haddii aad aadaysid waxaad aadaysid waxay tahay inaad raali gelisid isla markaana heshiisaan wixii aad ku qaldaneedna sidoo kale uu ku yiraahdo waxaas bedel soma. marka fariin ayaa loo soo dhiibay marka Mark Zuckerberg ninka Facebook iska leh fariintii Trump ayuuna si toos u dhaqan geliyay hadalkiisa. waxa u malaysaa Trump oo hadlay inuu Trump ka dhaxlayo u malaysaa markuu hadlayay. waxyaabo fiican way ku jiraan qodobada waxyaabo aad xunna waa ay ku jiraan. marka sidaa darteed xitaa $1 milyan oo ugu deeqay xafladda dhaarinta ee Trump markii uu tagay kadib raali gelinta ayay qayb ka yihiin halka milyan bal xafladda caleema saarka qaban qaabadeeda ayaan ugu talagalay ayuu yiri. sidaas ayuu u sii marka dalabaadka Trump uu soo dhiibay waxa kamid ah horta waa in meesha laga saaro wax la yiraahdo fact checks waxyaabaha qofka warkiisa in la xaqiijinayo ama la faafreebayo ama la tifatirayo gabi ahaanba meesha ka saarahay qofna ii shaqaalaysiin. marka waxa uu shaqaalaysiin nin Dana White la yiraahdo oo madax ka ahaa UFC tartankan feerka oo wax kasta la isla dhaco Ultimate Fight Championship la yiraahdo. ninkii ayaa waxa lagu daray guddiga taladu ay ka go'do ee Facebook ayaa lagu daray. marka labadaas dalab ayuu Trump soo dhiibtay labadii dalabna ninkan gabi ahaanba waa uu fuliyay. marka 6 qodob oo Mark Zuckerberg uu shalay ku dhawaaqay waxa ay kala yihiin horta in meesha laga saaro fact checkers dadkii wararka xaqiijin jiray Facebook la soo geliyay. marka macnaha wixii hadda ka dambeeyay waxay tahay sheekadu hayaacdo waa wixii aad rabto ayaad soo gelin kartaa. waxa uu meesha ka saaray 3 qodob oo kaliya oo yiri in waxyaabaha argagixisanimada la xiriiro iyo sidoo kalena caruurta laga faa'iideysanayo iyo drugska maahane inta kale wuxuu yiri waa la fududeyn doonaa. waxa lagu bedelayaa mataqan community notes wax la yiraahdo oo ah dadku inay soo report gareeyaan wax qaldan haddii arkaan. dadka isticmaala Facebook ayaa hadda ay ku tiirsanaanayaan. marka dadku markay soo report gareeyaan kadib ayaan eegaynaa yiri waxaas la soo report gareeyay. marka meeysan fududaadoonin qof kasta si fudud la isaga report gareey. qodobka koobaad waa kaasa. qodobka labaadna wuxuu yiri waxaan fududeynaa simplifying content policies siyaasadaheena ayaan fududeyn doonaa qofku waxyaabaha uu sameynayo oo Facebook uu soo gelinayo siyaasadaheena waan fududeynaynaa. markaas dan wuxuu yiri qodobka saddexaad new approach aan qaadanayna oo ku aadan policy info siyaasadaheena qaab cusub oo u dhaqan gelino ayaa uu sidoo kale ku dhawaaqay. waxa sidoo kale ku dhawaaqay in uu dib u soo celinayo civic contents waxyaabaha marka madaniga ah. markii hore wuxuu yiri dadku
siyaasadaha iyo waxaas inta badan kor ma aanan usoo qaadi jirin waxyaabaha siyaasadaha looga hadlayo, laakiin hadda wuxuu yidhi kor ayaan usoo qaadayna. arrinta ugu muhiimsan waxay tahay dadka u qaabilsan arrimaha in kalsooni lagu qabo Facebook iyo badqabka iyo content moderation, dadka lacagaha laga sameeyo, dadka lacagaha ka sameeya Facebook, dadkii arrimahaasi qaabilsanaa xaruntaasi fadhigeedu waxay ahayd California. hadda waa ka raraynaa yuri California oo waxaan u raraynaa gobolka Texas. marka gobol dimuqraadi ah waaye, gabi ahaanba waan ka raraynaa oo waxaan u raraynaa gobolka Texas oo Republican oo red ah. sidoo kale wuxuu yiri waxaan doonaynaa in Trump uu nagala shaqeeyo sida loo ilaaliyo free expression oo dhammaanba adduunka, in qofku wixii uu rabo dhihi karo guud ahaan caalamka. Trump dowladiisa ayaa rabaa in nagala shaqeyso. marka sida muuqata dalabaadkan waa dalabaadkii Trump ninkan uu soo dhiibay, sidoodii ayuuna u dhaqangeliyay. marka waxay haddii aan faahfaahinta dib ugu laabto, Mark Zuckerberg oo ka hadlayay arrinta fact checkers, dadka faafreeba ama tifatira wararka qaldan ee Facebook la soo geliyo oo laga saari jiray, arrintaasi waxa uu ku tilmaamay in ay burburiyeen kalsoonidii ay shacabku nagu qabeen. ayuu yiri sidaa darteed waxa uu yiri waxa ay burburinayeen ayaa ka darna, ayuu yiri waxa ay sameynayeen ama ay saxayeen. isagoo arrimahaasi ka hadlayay marka sidii kalsoonida shacabka dib loogu soo celin lahaa, Mark Zuckerberg arrimahaasi waxa uu ka yiri. sidoo kale qodobada kale ee saddexda ah ee isku xiga oo kala ah in ay fududeynayaan waxyaabaha siyaasadaha Facebook, waxyaabaha dadku ay soo geliyaan, iyo sidoo kalena inay qaadayaan waddo cusub oo siyaasadahooda ay ku dhaqangeliyaan, iyo inay dib u soo celiyaan waxyaabaha madaniga dadku inta badan ay soo geliyaan. ayaa waxaa arrimahaasina sidoo kalena Mark Zuckerberg waxa uu sheegay in siyaasadooda cusub ee hadda ay dhaqangelinayaan inay tahay in siyaasadahan qaladaadka la yareeyo, ayuu yiri, islamarkaana sidoo kalena faafreebkii meesha laga saaro. dowladda Biden ayaa waxaa lagu eedeynayay inay faafreeb badan ay ku sameeyaan. macnaheedu xitaa mar waxaa la yiri waxyaabo fara badan oo maamulka Biden uu ka dalbaday in Facebook ay ka saaraan dadka iskale Facebook. marka sidaa darteed waxa uu yiri siyaasadahan cusub xadgudubyadii la sameyn jiray, filters waxaa jira waxyaabo filters oo inta badan ku xiran Facebook oo waxyaabihii qalada soo qabtay. marka wuxuu yiri filterskaasi xadgudubyo ama qaladaad fara badan ayay sameeyeen. marka hadda inta badan waxaan diiradda saari doonaa, ayuu yiri, arrinta la xiriirta qaladaadka waaweyn. waxyaabaha yaryarna waxaan ku tiirsanaan doonaa dadku waxyaabaha ay noo soo gudbiyaan si aan u yareyno qaladaadkeena iyo weliba arrimaha censorshipka ama faafreebka ama tifatiritaanka lagu sameeyo dadku waxyaabaha ay soo geliyaan. sidoo kalena waxa uu sheegay in inta badan dadku siyaasadda markii hore aysan nala dhihi jiray dadku waxay ku noqdeen stress, siyaasadda ka daayay waxyaabahaas, laakiin hadda wuxuu yiri dib ayaan u soo celinaynaa arrimihii siyaasadda oo Facebook iyo weliba Instagram iyo Threads la soo gelin jiray. sidoo kalena waxa uu sheegay in arrimahaas ay yihiin arrimo muhiim ah oo loo baahan yahay dadka inay qaataan. sidaa darteed waxa uu yiri waxaa jiray in ciwaano fara badan si fudud qadka looga saari jiray oo hawada laga saari jiray iyadoo dadkaasi aysan waxba galabsan, sida xanuunka hadda dagaalka Israa'iil ay kula jirta nimanka Gaza ka dagaalamaya, kuwa Lubnaan iyo weliba Yemen. marka magacyadooda la sheego in si fudud waxyaabahaasi loo qaban jiray. marka hadda siyaasadahaasi waa ay dabcinayaan. waa kana marka isagoo saddexdaasi qodob ka hadlayay Mark Zuckerberg mar kale. ugu dambeyntii Mark Zuckerberg labada qodob ee ugu dambeysay waxay yihiin in wuxuu yiri tiimkii noo qaabilsanaa aaminaada macnaha Facebook lagu qabo iyo badqabka macnaha waxyaabaha xunxun iyo dadkii qaabilsanaa inay la socdaan, iyo weliba content moderation dadka Facebook lacagta ka sameeya qaabkii dadkaasi la socdo. tiimkaasi wuxuu yiri waan ka raraynaa California, waa gobol dimuqraadi, waxaanan u raraynaa yiri xaruntaasi gobolka Texas oo ah gobol Republican. arrintan maxay macnaheedu tahay? faafreebka ayaa nagu batay gobolkaasi dimuqraadiga, macnaha tifatiritaanka wararkeena. wuxuu leeyahay haddii wax qalad la soo geli waa ay fududahay inay soo galaan ciidamadu. marka gobolkaasi Republicanka oo aan nala faragelinaynin ayaan sidaasi aan ugu guuraynaa, ayuu leeyahay. qodobka ugu dambeeyana waxa uu yiri in waxaan doonaynaa dowladda Trump ee hadda imaanayso ay nagala shaqeyso sidii loo ilaalin lahaa free expression oo dhammaanba worldwide ah. qofku wixii uu rabo inuu dhihi karo, macnaha waa sida hadda Twitter, maadaama content moderationka hadda fact checkers waxa meesha looga saaray waxay tahay waxay fulinayaan qaabka X amaba Twitter oo kale oo hadda Elon Musk markii uu la wareegay 3 sano ka hor hadda Twitter wax kasta la soo gelin karaa. marka waxa uu yiri Mareykanka ayaan hadda ku bilaabaynaa Mark Zuckerberg in dadkaas fact checkers oo wararka xaqiijin jiray meesha laga saaro sida Twitter ayaan u dhaqmi doonaa, ayuu yiri, ama X hadda loo yaqaano oo Elon Musk uu iibsaday. Trump iyo Elon Musk waa ognahay waa ninkii Elon Musk waa ninkii Trump soo saaray inuu ku guuleystay madaxtinimada.
marka wuxuu leeyahay dowladda Trump ee soo socota taasi ayaan ka sugaynaa. Wuxuu yidhi Maraykanku waa wadanka ugu ballaaran ee dastuurka uu ilaaliyo free expression, qofku wixii uu rabo inuu sheegi karo. Marka wuxuu carabaabay wadamada Yurub, Latin America iyo Shiinaha ayuu carabaabay. Uu yidhi aad iyo xorriyadda hadalku amaba xorriyatul qowlku ay loo caburiyaa. Marka sidaa darteed wuxuu yidhi arrintan waqti ayay qaadan doontaa ayuu yidhi. wax badan oo sharci darra waa ay jiraan uu yidhi aan qaban doono, laakiin muhiimaddu waxay tahay uu yidhi in sanado fara badan oo diiraddu ay saarneed uu yidhi diiradda aan saaraynay lacagta laga sameeyo Facebook, hadda waxaan diiradda saari doonaa yidhi inaan dib u soo celino kalsoonidiina lagu qabay, qaladaadkeena inaan yarayno, inaan fududayno systemkeena, iyo sidoo kalena in aan meesha ka saarno dhammaanba waxyaabihii qaladaadka ahaa si dadku ay cod u helaan. marka arrintan waqti ayay qaadan doontaa, dadku waa inay dulqaad ay noo muujiyaan ayuu yidhi. ugu dambeyntii labada qodob ee ugu dambeyso oo in xaruntooda ay ka soo rarayaan California oo Texas ay geynayaan, iyo sidoo kalena in dowladda Trump uu ka codsanayo inay kala shaqeyso free expressionka, qofku wixii uu rabo inuu dhihi karo guud ahaan caalamka. isagoo ka hadlayana waxa uu yidhi aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiina Cilmi Waaro idin la sida iyo nabadgelyo.